إله عيبته أنا جبان هاي ومان أنا قلت مصومة لكن ذا أنفريا سدح قفوان أنفريا وقاعد ناس موجي يفريا صوتها ما كان وحن إن ده حمر هاي صح هذا تقول أقص مجيد أقرأموت مركا وهذا اللي ولي قال وقت يسدعية نعم saacadihii ugu dambeeyay social mediaha qaybihiisa kala duwan gaar ahaan tiktoka amaba sidoo kale facebooka waxaa aada u qabsaday video uu kasoo muuqday Ilayare oo markii ugu horreysay ka hadlay xaaladiisa caafimadeed alfanaan Ilayare ayaa sheegay in iyadoo Bilson ay tahay ay nasiib darro tahay maadaama uusan ku jirin ummadda sooman. Ile ayaa sheegay in uusan ahayn qof soomo. Waxa uu Ile dhanka kale xusay waxa uu yiri ma soomo laakiin 3 qof ayaan maalin kasta afuriyaa waan xanuunsanahay haddii aan soomo indhaha waxba kama arko sidaa daraadeed ayaan cuntada u cunayaa buu yiri. Ilaa ayaa ka codsaday ummadda muslimiinta gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan in Allah subxaanahu wa ta'ala ay uga baryaan caafimaad taam leh. Ile ayaa muddooyinka ugu dambeeyay ku xanuunsanayay magaalada Nairobi. Alfanaan Ilayare ayaa waxa uu mar video uu soo duubay kaga hadlay arrintan uu sheegay in madaxa ay uga taalo buro sidoo kalena xilliga qaboobaha ay aad ugu soo kacdo. Alfanaan Ilayare ayaa daaha ka qaaday markii ugu horreysay in uusan ahayn qof soomo sabab la xiriiro xaaladiisa caafimadeed. Dadka aadka ugu dhow Ilayare ayaa marar badan sheegay in Ile uu qabo ama madaxa ay uga taalo buro sidoo kalena buradaasi mararka qaar ay ku soo kacdo quraan saar la geeyo Ile. sidoo kale Ile waxaynu maqalnay in madaxa buradaasi uga taalo haddii energy la'aan uu dareemo ama maskaxdiisa xilliga uu baahan yahay dhibaato aad u weyn oo soo fod saarto waxaana laga yaabaa sida uu isagu sheegay in aragga ay si toos ah u saameyso ama xanuunkiisa uu aragga saameyn u geysto. Allaha caafiyo Ilayare waa qof mar waliba jecel runta. waxaynu ognahay in aynu ku xusuusanay Ilayare inuu yahay qof mar waliba juhdi iyo dadaal ugu jira sidii uu korin lahaa caruurtiisa. sidoo kale Ile ayaa dhaxda u xirtay sidee barbaarin wanaagsan uu siin lahaa awlaadiisa. mar waliba social media ayuu kala soo muuqdaa caruurtiisa waxaana mararka qaar uu sheegaa sababaha ugu weyn dadka marka ay weydiiyaan sababta uu uga bixi lahay fanka in sababta ugu weyn arrintan uga hadlaya ay tahay maadaama fanka uu isagu uga raadsanayo nolol maalmeed iyo qutulyoon awlaadiisa iyo mas-uuliyadda isaga saaran awgeed. waxa uu sheegay in isaga uu yahay qof markaasi fanka siyaabahaasi ugu jiro maadaama uusan wax soo baran sidoo kalena xoogiisa uu ku shaqaysto sidoo kalena dhankaasi uu u adeegsanayo fanka. Ile marar badan waa uu ka hadlay xaaladiisa caafimadeed laakiin markii ugu horreysay waxa uu daboolka ka qaaday in uusan ahayn qof sooman. waxa uu sheegay in soonka uu yahay wax wanaagsan sidoo kale waxaynu ognahay in soonka uu ka mid yahay 5 tiir ee islaamka. hase yeeshee haddana Ile waxa uu sheegay in Allah subxaanahu wa ta'ala uu ka dalbanayo ama ka baryayo in uu ka samata bixiyo xaaladiisa caafimadeed isla markaana caafimaad ugu dabaalo. Ilayare ayaynu ognahay in aynu ku xusuusano sheekooyinka xaraabaha iyo sidoo kale waxyaabaha shacatirada oo inta badan baraha bulshada aad ugu faafiyo. Alfanaan Ilayare ayaynu ognahay inuu ku nool yahay magaalada Nairobi sidoo kale uu mas'uul ka yahay caruur uu isagu sheego in Allah subxaanahu wa ta'ala ka soko mas'uuliyadeeda ilmahaasi isaga ay saaran tahay. Alfanaan Ilayare ayaa wayadan dambe aanu social media sidaasi uga soo muuqan marka laga reebo Facebooka oo muuqaalo dhowr oo dadku kula wadaagayay. hase yeeshee Ilayare ayaa u muuqday ama saacadihii ugu dambeeyay muddooyinka ugu dambeeyay mid aanu sidii hore heeso kala gudsan baraha bulshada sida dadku ay uga barteen ba aanu ku soo bandhigin. Ile ayaa muddooyinka ugu dambeeyay aan wax heesa soo saarin waana sababaha dadku ay isku weydiinayaan xaaladiisa caafimadeed iyo waxa ku soo kordhay imika. Ilayare ayaa waxa uu ummadda muslimiinta ka codsanaya in Allah subxaanahu wa ta'ala Bilson aynu ku jirnaay aynu Allah u barino Ile in Allah subxaanahu wa ta'ala uu caafiyo xanuunkaasina uu Allah ka qaado. soonku waa caafimaad dadkuna qaar waxay qabaan in Ile ay u soo jeedinayaan inuu soomo maadaama soonka uu yahay caafimaad sidoo kalena uu yahay rukniga saddexaad markaas arkaanta islaamka. soonku waa mid ka mid ah arkaanta waaweyn ee islaamka waana wax qof markaas muslim ahi laga doonayo marka laga reebo dadka bukaanada ee xanuunsan
in ay isku dayaan in soonkaasi ay ka faa'iidaystaan. haddaba fadliga iyo faa'iidooyinka bisha barakeysan ee ramadaan iyo in soonka uu ka mid yahay tirarka islaamka waynu ognahay, waana fursad sanadkii hal mar soo marta dadka muslimiinta. diinteena islaamka bisha soon aad iyo aad ayuu u karaameysay, waxayna diinta geysay bishani boos aada u weyn. bisha soon waa bil lagu tarbiyeeyo nafsadda, loogana dhahiriiriyo waxyaabaha xunxun. sidoo kale waa bil dulqaad leh, maxaa yeelay qofka inta uu sooman yahay wuxuu dareemayaa oon iyo gaajo. oonku waxa uu qofka barayayaa dulqaadka iyo wixii nafsadiisa ay jecleed oo dhan oo uu ka tegaya, isagoo aaminsan in alla dartiisa uu sooman yahay, ajirna uu xisaabsanayo. sidoo kale gaajadu waxay qofka baraysaa in qalbigiisa uu khushuuco oo waxyaabihii shahwaadka ahaa qofka uu isaga tago. sidaa daraaddeed dadku waxay leeyihiin ilow waxa aynu kaa baryaynaa oo aynu kaa codsanaynaa inaad isku daydo inaad soonto, inkastoo isagu uu sheegayo in mar allaala marka uu isku dayo inuu soomo in indhaha aragiisa uu aada u daciifaya ama uusan waxba gebi ahaanba ka arki karin indhaha. sidoo kale ilo waxa uu leeyahay xanuun aada u daran ayuu dareemaya, sida uu isagu hadalka u dhigay. haddaba waxaynu ognahay ramadaanka in la furo albaabada jannada, cirka iyo sidoo kale dhulka. waxaa la furo albaabada naxariista, waxaa la xiray albaabada naarta. siyaabahaasi awgeed ayaynu ummadda muslimiinta uga codsanaynaa in ay usoo duceeyaan walaalkeen soomaaliyeed ilayare, in alla subxaanahu watacaala uu isagu caafiyo. waxaynu ognahay in soonkani dad badan ay ka faa'iideysanayaan, siiba tobanka dambe ee iminka aynu ku guda jirno. waxaan ku jirnaa mid ka mid ah habeenada ka qeyrka badan kunka bil ee la sheegay in ay ku jirto tobankan dambe. hase yeeshee haddana fadliga bishaasi awgeed waxaynu ummadda u weydiinaynaa ilayare in alla subxaanahu watacaala caafiyo, sidoo kale alla subxaanahu watacaala uu caafimaad deg dega ugu deeqo. ilayare waa qof markaasi ummadda ay uga baratay runta, mar weliba noloshiisa ayuu ka run sheegaa, wax weliba noloshiisa ku saabsan ayuu dadka la wadaagaa, isagoo aan faanaynin ayuu xiliyo badan waxa uu ka taariikhiyey marxaladihii uu soo maray. inta aanu fanku soo gelin waxa uu sheegay in dhibaatooyin kala gedsan uu la soo kulmay. ila ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in duruufta ay ku qasabtay in uu isagu fanka kusii jiro. waxa uu sheegay in fanka siyaabaha ugu jiro ugu weyn ay tahay in qutulyoon uga raadiyo caruurtiisa. marar badanna social media aynu ka aragnaa isagoo waqti la qaadanayo kana farxinayo ilmahaasi aabbaha u yahay. ile waa qof aada iyo aada u wanaagsan, alla subxaanahu watacaala ayaynu leenahay allow ha ku caafiyo. sidoo kale muuqaalkiisa ayay dadku aad markaasi uga garan karayaan ama laga aqoonsan karaa xanuunka uu dareemaya iminka. waxaanu ognahay in ilo marar badan uu soo bandhigay xaaladaasi caafimadeed, hase yeeshee haddana dadka qaar aysan aaminsaneen waxa uu ilo sheegayo. haddaba waa soone ummadda soomaaliyeed, gaar ahaana ummadda muslimiinta, waxaynu ka codsanaynaa qof alaalo qofka jecel in walaalkeen uu alla caafiyo, islamarkaana caafimaad ku rajeynayo. qeybta commentiga ayaad faalladaada inoogu soo qoraysaa adigoo halkaasi duco iyo sidoo kale qoraal bogaadin iyo dhiirigelin hawada u marin doono ilayare iyo markaasi ummadda muslimiinta dhammaanba iyaguna dhambaaladooda halkaasi inoogu soo gudbin doonaan. videoga maanta halkaa ayaynu ku ekeynaynaa dhegeystayaal iyo daawadayaal. haddii aad jeceshahay muuqaalkan muuqaalada kale oo aad ku faraxsan tahay inaan idiin soo gudbino muuqaal weliba oo ka hadlaya nolosha dhabta ee soomaalida, fadlan subscribe-ta nagala baqeyliyo, sidoo kale la garay muuqaalkan. waxaad isku daydaa in sidoo kale haddii ay tahay markaa koowaad ee aad soo booqanayso gambalaalkan aad furato si aanay kuu seegin muuqaalada halkan aan kusoo gudbino. mahadsanid.